مشاريع هدين هلنا معمول بيننا هدينا هلنا وانه والله يا صدح سنوات بين اللهين عيد الدولان كماهين سوعين كمان عبد الساقو عيد النجود دولان كدولان بانو كنا عاول قبل أبو ضد كنجت جي وقالينا وحنا لا يهاي محابيس كودر صلاح ديال هاي كردقو كرده كبرسين waxaad leedihiin baa gacmihiina ku jira idinkoo arkaya gacmihiina yaan laga saarin baarlamankeena bishii saddexaad baan la wadaagay in qaar ka mid sii socdaan Cabdirasaaq laakiin dadkaasi wasiiraha xilka qaadi karaya ma ahayn waad ogtihiin golaha maantiidooda la fadhiyay dad baa diidana xasanaadka qaaradda iyadoo qofkii uu iscasilay oo hargeysa ka soo hadlayo baa la daajadaha laga saaro الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مهد إلهي أن أعلن يكسك وحن ربائنا مهد عليه بلشدا يمرتدا قيمها بدن سجوترتا بلين يردي هوانكي يا مسؤولين كترسن دولة انتبه يا بهذا الصحافة آديات بانقوم هذا علينا رنتي إنه لقبنا يكون برشاد ويسوق إيمانه يسوع كلن سيدن أسوب دافعي مدرسي يوم ملك هل تشوف سيدن لواي ما أنت أيقوه الرئيسة هذا كور ما نرجع آديات بانقوم هذا علينا قابلات دا يا شبيتان كأد كلن كسوق قابشين آدينو بشين آديات بود ما سنتي جزاكم الله خير كلن كانوا وحدعيا إنه قبسوميا مركي يجوه الرئيسي أينو أرجعني مسؤولين هيرو قوي بريا أو ذي أو كذي دوبي قد يدوني دين تودي ما دي بقى نقضي أركتدي يهلكنكي مدة دير لغو سو جيري قيمين وايي ديغي iyo dhaawicii iyo burburkii ina gaaray ka door biday dhabar adayga inay siyaabo kale noloshooda wax uga bedelaan waa markii ugu horeysay arrinkaasi waqooyi bari uu ka dhaco arrinka hadalka waxaan u bilaabanayaa waxaan rabaa bulshada reer waqooyi bari inaan u bayaamiyo maaha markii ugu horeysay ee mas'uul deegaanka ka soo jeeda uu dabayl raaco oo iska geedi tago markii ugu horeysay baa maxaynu u noqonay kuwii hore inaga tagay waxaan idin xusuusinayaa iyadoo Soomaaliya ayaan dawlad ka jirin iyadoo deegaanada Soomaalida maamul laga dhisin baa deegaanka kan laas caanood waxa laga yagleelay maamulkii golihii xusuusida waa la dhaariyo waa la aamino dantii ummadda ka shaqeeyay isla maalmihiiba diyaarad bay inta u yaadeen bay garoonkii halkaa geela qarsi ka raaceen waad garanaysaanay taariikhda meeshay kaga jiraan kuwii waad garanaysaan idiin sheegi maayo hebel iyo hebel odhan maayaan kuwan maanta halkan inta lagu dhaariyey mas-uuliyadda qaaday waa ka taariikh liidan doonaan kuwa aad garanaysaan iyo intii ka sokaysayba waxaase la yaab leh dadka intay bulshadoodii khiyaameen qadiyadoodii ka ridoobeen mabaadi'doodii adduunyo dhaafsaday aan la hubin inay helayaan iyo inayan helayn haddana dhaliisha u soo taaganay indhaadaygooda cid kala dhaliilaya waxaa jirta qiso laga sheekeeyo niman baa webi ku dabaashaysiri nin baa webigii markii hore galayoo midhamarihiina waa la baxo waa ilaawo isagoo qaawin buu ka soo baxay webigii markaasuu wuxuu arkay nin midhamaradii qaar sita qaarna dhigtay markaasuu yidhi marada wada gasho ha isqaawin hadda isagu waa muruxsan yahay dhaliisha ku taalla qofka maanta horgal jooga 2026 u bareeray وحافك الله سومري كره وكوي تهدالي شاس وكعذر دارنا يا إن أنكوا وقت جليو وأن كهالله وأن تباحه وأن ميسان ويالله يجعل هذا وشكله عين كما هي
وحسرر وقوي بريو شيغيا قف تغي يمي تغي دونا يمد ummadan khiyaamo la dhex jooga waxba loo noqon maayo إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وكاشيخ غير ما يستري غير وقوي بري قلتين وعدافين نينك إسلادتك النجاسة أو فدرايو وحبن ييل ميسو دول كادو سو سيرسا غير وقوي بري halkan waxay ku soo gaareen halgan cadaalad ku dhisan halgan xaq ku dhisan halgan midnimo ku dhisan halgan Soomaalinimo ku dhisan halgan midnimo ku dhisan baa lagu soo gaaray annagoo arkayna cidna u ogolaan mayno dadkan ducaynta qadiyada waqooyi bari cidna u ogolaan mayno cidna u saamixi mayno in ummadatan ay dhibaatadeedii fursad ay u hesho mar kale cidna ka ogolaan maynaan واجبتا maamul baa inoo dhisan waa ilaahay mahadii gaabis iyo daliil qof kasta u muuqanaya jawaan waan ugu horeeyay u muuqanaysaa laakiin rooma maalin lagu ma dhisin adima dhooba marba mid baa la saaraa qadiyadeen waxay u baahan tahay inaynu ku fara adeegno waqti gelino ku faano halkaynu joogno ku faano waxa aynu nahay ku faano dadkeena iyo bulshadeenu siday wax u qabsan karayaan dawladda waqooyi bari waxay ku dhisan tahay isku tashi waxay ku dhisan tahay midnimo waxay ku dhisan tahay wadajir waxay ku dhisan tahay inay tahay qadiyad aan qof Soomaaliyeed dhibaatadiisa iyo hagardaamadiisa iyo qaranka Soomaaliyeed waxyeeladiisa meel laga soo gelin karin bay ku dhisan tahay haddaynu mabda'aas iyo mowqifkaas iyo qadiyadda xambaarsanay reer waqooyi bariyo dabaylaha dhacayay waxay ruxaan geedka baarkiisa iyo laamihiisa ee jiridiisa ma dhaqaajiyaanay reer waqooyi bari qadiyad bay leeyihiin qadiyadda ay leeyihiin jirid geed adag waa ka weyn tahay dabayl iyo duufaan iyo wax dhaqaajin kara ma ruuxi kari doonaan ma jiraan haddii ilaahay yidhaahdo cidda maanta waqtiga gelinaysa cidda maanta ku fakeraysa reer waqooyi bari siyaabihii waagii hore lagu shaqaysan jiray baa maanta lagaga biyo gaaraya waqti baa ka lumaya ka joogsada oran mayna waxaan leenahay waqti lumiskaa ku socda dhaliilaha xukuumadda loo soo jeedinayo boqolkiiba 90 waa dhaliilo ku qotoma rabitaan iyo dooris laakiin waxa jira boqolkiiba 10 90 ka qaylo badan oo ujeedo gaar ah iyagu abtigay dhagawal wuxuu yiri 2 usbuuc ka hor iyo 3 usbuuc ka hor baan dad baatigay baarlamankeena bish saddexaad baan la wadaagay in qaar ka mid sii socdaan Cabdirasaaq laakiin dadkaasi wasiiraha xilka qaadi karaya ma ahayn waad ogtihiin golaha maantiidooda la fadhiyay dad baa diidana xasaanadka qaaradda iyadoo qofkii uu iscasilay oo hargeysa ka soo hadlayo baa la hal daajadaha laga saaro aynu dib isugu noqon waa bish saddexaad markaan soo jeedinaya anigu laakiin waxa loo qaatay dad aniga ay diidan oo aan diidanahay laakiin macalcuna isaga soo bixi doon in la kala miirmo oo dadka aan geeyin dhex joogoodu ka baxaan sharaf bay inoo tahay qof kastoo inaga mid reer waqooyi bariyo kaalin buu ku aadan yahay oo aynu ku aaminsannahay inuu inaga gudban yahay qofka aynu kaalin muhiim ah taagno ee aynu ugu caloosha ahayn intii la soo dhaafi lahaa barta aynu taagnay ha ka dhaqaaqo ha banayo oo aynu aragno insan inaga mid ahayn si aynu qof kaalinta u qalma aynu meeshu u taagnaayeen
haddii tusaale ahaan xildhibaanada inaga tegey ay diidan yihiin xukuumadda iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo say sheegayaan madaxweynahan iyagaa doortay golaha wasiirada kalsoonida iyagaa siiyey golihii ugu sarreeyay bay fadhiyaan hadday xitaa wax ka dhex qabdan kari waayeen waxay ahayd iyagoo halkaa barxaddaa fadhiya inay isna casilaan doodoodana jeedsadaan mise waa beentay laakiin waxa haddeer la akhriyayo waa ciira isku qarin meeshan oo kalena ciirada iyo boodhku qofka ma qarin karayaan guri ceebeed bay ka soo jeesteen go'aan ceebeed bay qaateen reer waqooyi bari waxaan leenahay ugu hambaliyeeya ilaahay ku mahadiya inay idin dhaafeen kuwa noocaas oo kale ah maamulkan aynu dhisannay waxaan doonayaa inaan warbixin yar oo kooban siiyo bulshada halkan fadhida maamulkan waa maamul dhammaystiran oo dowlad goboleed ah oo xubin ka ah xubnaha dowladda federaalka ay ka kooban tahay waa maamulkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya laga dhiso waa maamulka kaliya ee ku yimi boqolkiiba boqol rabitaan shacab waa maamulka kaliya ee ku yimi halgan iyo dhiig loo soo daadiyey waa maamulka kaliya ee maanta furaha u ah halbowlaha u ah wadajirka iyo midnimada Soomaaliya inta inaynu haysanno aynu isla garanno in markii ugu horeysay reer waqooyi bari aan cidina lahayn talada anaa ku meerinaya ama waa kugu muransana aynu isla garanno in aynu miiska Soomaaliya maanta wax ku qaybsanayso ama wax lagu go'aaminayo inuu taladiisa wax ku leenahay intaan aynu isla garanno waxaynu kaloo isla garanaynaa in xuquuqdii reer waqooyi bari hadday noqoto development iyo mashaariic iyo qorshayaal kaleba ay wali soo gaarin reer waqooyi bari intaan waa isla garanayno waa isla qalanaayo maxaa wacay maxay ku maqan yihiin maxaa xuquuqdii inoo soo gaari weyn waa su'aalo sharciya oo in la isweydiiyo laga doodo u baahan kadibna xal loo helo caqabadaha hortaagan dadkeenna waxaa daashaday in laga shakisiiyo tuhun la geliyo mugdi la geliyo jiritaankooda iyo maamulkooda ay haystaan ee ku yimid dhiigga shacabkooda iyo shahaadadooda mashruuc yaroo biyo dhaamis ama ceel la qodayo baa waxaa la odhanayaa waqooyi bari kuma jirto baroor baa la qabsanayaa waa la baay waa la hogey maamul ma nihin dowlad ma haysanaa la odhanayaa ilaah baan idinku dhaafshiyey markii aynu halgamaynay aynu dhimanaynay aynu dagaalamaynay bayna ceel laynoo qodin halgamaynu dhimanaynaayo waxaynu u dhimannay oo weli u taagannahay in masiirkeenna iyo magaceenna iyo aayaheennu gacanteenna uu ku jiro oo aan cid kale ayan inoo meerinayn tii ma haysanna aynu mashaariicdan aynu ka maqannay reer waqooyi bariyo ee dhagaheenna daashatay aqoon-yahan badan baa halkan fadhiya dhallinyaro soo shaqaysay baa halkan fadhida maamullada kale soo baara oo research sameeyo oo sida tan hadda aynu nahay ma soo mareen mise maanta is doorteenba garhkaa loo qabto oo loo furay mashaariicdii sanad baynu haddeer joognaa oo maamul buuxa aynu nahay sanadkaa aynu joogno maamuladii inala midka ahaa 4 iyo 5 sannadood baa galmudug baa ugu sokayso ay ku qaadatay in mashaariicda development-ga loo soo daayo waana wax cad halkana waxa soo fadhiistay habeenada ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee galmudug oo haddeerta agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta wuxuu ka sheekeeyey xilliguu madaxweyne ku-xigeenka ahaa oo ahaa 4 sannadood ay dhammaysteen inayan hadal haynba wax mashaariica reer galmudug laakiin marra kamay shakiin inay yihiin state jiro oo buuxa oo dhammaystiran marra kamay shakiin
reer waqooyi bari maamulkoodii qadiyadooda kama shakisana laakiin propaganda iyo tashwiish kharash lagu bixinayo oo kuwa far badan oo wax magarooda inaga inagu jira la soo marsiinayo baa qayb ka ah in dadkan laga shakisiyo qadiyadooda iyo mabaadi'dooda waa sax way jirtaa duruuf aynu inaga inoo gaara oo dad fara badan oo aan wanaageena doonayni ay inta dacwad la taagan yihiin xafiisyada inagu aynu ka qareemanaynaay way leeyihiin ma aha xaq uma leh annaga inaga mid yihiin yaan loo sii daynay soo wax jira ogtiin maaha inagu marka maamuladii kale ee Soomaaliya ka hirgalay ee sanadaha ay ku qaateen mashaariicdaas helaan waxaynu dheernahay garab orodka iyo dacwadda iyo cadownimada dhinaceena soconaysa aynu dheernahayo ayay ku hor ayeen qabin mashaariicda ugu badan waxa bixiyay World Bankiga meelo badan waan ka sheegay World Bankigu shuruudo iyo process la maro oo lagu helo hantidiisa uu leeyahay waa ku guda jirnaa intii badeed waa inoo soo qabsoontay waayo dadaalka waxaanu soo bilownay labadii sano ku meel gaarka ahaa inaga marka waxa lagu baahan reer waqooyi bariyo dayda dhan xoorku isaga soo dhici doonee aynu qadiyada mabda ku taagnaano mashaariicdan iyo khayraadkan xaq alle ka imanayaan oo waayimayna hadii Ilaahay ka dhigo xukuumadda federaalka ama madaxdeeda Prime Ministerka iyo madaxweynaha anigu inaan iska warramo dooni maayo laakiin weli maamul kale oo aan dadka kan dantiisa hayn lama soo shaqeyn habeenna kuma fikirina xukuumadda federaalka iyo madaxda joogta haddaan ka arko dadkayga dantooda inay intaan la ka soo horjeedaan qofka ugu horeeya ee ka dhaqaaqay ee oranaya ina kala dhufta dantayda ma wadaan bacdaad noqonaya mashaariic hadaynu helana maamul baynu hadeynaan helina waa dhaho wallahi siyaasadda Soomaaliya ka taagan ajendayaasha laga wada hadlayo xalay waxaan kulan la qaatay qaybo kamid ah warbaahinta madax bannaan iyo kuwa dawladaba ajendayaasha hadda laga wada hadlayo ee miiska siyaasadda ee Soomaaliya saaran dad baa waxay doonayaan inay ku soo daraan waqooyi bari in la isla qaatay inay maamul buuxa ahayn maamul jira inay ahayn marka qaarkeen si ordaan si yaacaan qaar kale gudaha ka gooxaan oo yiraahdaan waxba meesha ma yaan waa la hoogo dadkaas meeynaan si indirect ula shaqeynayn dadka ku doodaya waqooyi bari maamul qaangaara maaha qorshayaasha soconaya ee Soomaaliya ka dhex taagan waqooyi bari waa u miisaamanta hay dhalinyarada warbaahinta si fiican baan ugu warbixiyay qodob baan uga hadlay siyaasadda Soomaaliya maanta taagan dawladda federaalka ee maamulkan dhistay baynu kala soconaa kala midnahay inta mucaaradka sheeganaysay waa nin la waqooyi bari ma jirto ee ninku aamusan oo ku taageersan miyaynu kaynu wada soconay gacanta ka dhufsanaa kaayna diidanna aynu taladana u dhiibanaa muqdisho gurin leeyahay maaha waa caasimadda Soomaaliya kamaanta diidan shalay buu joogay kamaanta diidan bari buu tagayaa iyada lama horaankiya maxaa u aadeen maxaa ka doonteen waa degdegteen warkaasuna geli maayo wax qabadka xukuumadda iyo maamulka marka loo soo jeestay aynu xisaabtamayno dhalinyaradii iyo xubnihii halkan ka hadlay doodooda waa taageeraya waana soo dhaweynaya bulshada halkan fadhiday waqooyi bari waxaan leeyahay halkan waxaynu ku soo gaadhnay isku duubniya midnimo waxaynu ku soo gaadhnay halgan iyo qadiyad waxaynu ku sii jiri karnaa
oo guusha aynu haysano ku ilaashan karnaa midnimadii iyo halgankii iyo suduubnidii oo keliya arrimahan dhacaya waxaynu ka qaadaynaa adkaysi iyo isku duubni iyo wadajir intii hore ka xoog badan baynu ka qaadaynaa waxaynu ka qaadaynaa in dadkeenna qofka khaldan ee arka sidii la sheegay aynu gacanta qabsanaayo waxaynu ka qaadaynaa in xukuumaddeenna gaabiskeeda farta la isugu fiiqo isla mar ahaantaana la isla saxaynu ka qaadaynaa waxaynu ka qaadaynaa in aynu ogaanno meeshii aynu ka nimi iyo meeshaynu taagannahay iyo halka aynu u soconno intay isu jiraan baynu ka qaadaynaa adkaysigaas iyo waayo aragnimadaas bay arrimaha kale inoo kordhinayaan waxayna fahansiinayaan in cadowgii shalay ina dhibaateeyey maanta dhibaatadii uu la soo taagan yahay in cadowgii shalay ina barakiciyey dadkeennii gumaaday weli uu diyaar u yahay intii oo hadduu maanta awood u leeyahay ama uu fursad iyo jaanis u heli karayo dhibaatadii iyo in la geysan lahaa oo samayn lahaa dhallinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kale ee bulshada oo dhan waxaan u sheegaynaa qadiyaddeennu waa ka weyn tahay wax la kala iibsado xagala geel wax gunti la geliyo ka weyn kumeelgaarkii waa ka soo baxnay xilligii aynaan maamulka haysan waa soo dhaafnay xilligii laynoola jeeday nimankaasi waa jabhad waa ka soo gudubnay maamul buuxa oo deegaanadiisa si buuxa uga talinaya oo salmigii u fadhiya baynu haysannaa intaynaga dhiman iyo waxa aad dareemaysaan ama aad tabanaysaan inagoo wada jirnay oo saxaynaa oo dhammaystiraynaa haddii ilaahay ka dhiga insha allahu tacaala saaxiibadayda dhaliisha loo soo jeediyey ee la yidhi kuwa kugu xeeran iyagu eedaba anaa eedda qaadanaya haddii ilaahay ka dhigo intaana loo sheegay ee nalagu baraarujiyey fariintaas saad u jeceshihiin baanu wax uga qabanaynaa haddii ilaahay ka dhigo innagu waxaynu u taagannahay inaynu hirgelinno oo ilaashanno mabaadi'dii aynu ku aasaasnay qadiyaddeenna iyo dawladdeenna iyo maamulkeenna maamulkeennu wuxuu u baahan yahay inuu helo dadkiisii oo qof waliba ku garab taagan yahay ahmiyadda iyo shaqada loo igmaday qof kastoo inaga mas-uuliyad baa ka saaran mas-uuliyaddaasina uma baahna in la isku eego in la isku dayaco haddii idinkoo aniga idirsaday aragtaan hawshiinni inaanan qabanayn oo aanan idinku maqnayn inaad igu eegataan wax macnaa idiin samayn mayso ii imaadda duqa waa kaa khaldan tahay waad ka leexsan tahay soo baydh talooyinkeennu bannaankaasay wada yaallaan bishii tobnaad ee 2023 waxaynu isla qaadannay in itijaaha iyo qiblada siyaasadeed uu noqdo federaal iyo muqdisho magolo kafuul bay ahayd ku dhashay cabdilqaadir iyo kooxdii markaa golaha fulinta kula jirtay baarlamaanka ma ahayn go'aamadii 6 February la gaaray baa sidaa sheegayey cahdigii kumeelgaarka ahayna la ku dhaariyey baa sidaa sheegayey xanay hadh shalayna federaal baynu doonaynay maantana federaal baynu doonaynaa berrina waa doonaynaa haddii Allah ka dhigo insha allahu tacaala cidda joogta federaalka iyo caasimadda markaas annaga muhiimaddayadu maaha inaanu Soomaali qayb ka noqonaan doonayna waayo waxaana soo martay muddo dheer oo leeyahay Soomaaliya ma ahidin waxaana soo martay muddo dheer oo Soomaalka inta laga musaafiriyo la yiraahdo jaanib baa tihiin waxaana soo martay muddo dheer oo la yiraahdo go'aanka ay qaateen dadka reer Geesiye Burco baad ku gowracan tihiin
uurjiif hooyadii ku gowracan uurjiif waa noqon weyn Soomaali waa laga saari kari waay haddeertana daacadii barbaganda kaga bixmaynaan Soomaali baynu bartan kaga jirayna hadii Ilaahay ka dhigo dawladnimada Soomaaliyeed baynu ka shaqaynaynaa Soomaali baynu midaynaynaa waa isu keenaynaa si intaas ay noogu soo gasho inagu aan midowno isu imaano meel wada fadhiisano qadiyada tan iyo maamulkan idinka iska leh yaan laynoo kala sheekay yaan leedin bahal gelinin golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo garsoorka saddexda garab ee ay xukuumaddu ka kooban tahay dawladda waqooyi bari ninka doonaya inuu suurad xumeeyaan xagga feeru soo jeedinaya ninka doonaya inuu wanaajiyana xagga cad ku yaalbu soo jeedinaya inuu keenay noqonaa marka hadii reer waqooyi barinahay haruub caana ku jiraan ba horteena yaala inna wuxuu haruubku waa maran yahay oo inta badan buu eegayaa nina wuxuu haruubku waxba ku jiro inta ku jirta u muuqanaysa inta haruubka ku jirta aynu aragno aynu qiimayno inta hadhayna saynu u buuxsan lahayn aynu ka wada shaqeyn reer waqooyi bariyo arrimaha ku saabsan ciidamada arrimaha ku saabsan mashaariicda arrimaha ku saabsan federaalka iyo mabaadi'deen hore waa uga hadalay caawana waa ka hadalay inta aanu idin sheegnay oo aanan ka noqonayn waxa noo qarsoonayn weeyaan haddii la doonayo inaynu taladeena dib baandhayno waxaa lagu dhex baandhaynayaa waqooyi bari gudaheed iyadaan bari loo kicin galbeedna loo kicin qofka saxaya waa qof reer waqooyi bari qof ku qanacsan oo barar ku ah inuu reer waqooyi bari yahay qof aan damiirkiisa iyo codkiisa iyo dareenkiisa la iibsan karin baa sixi karaya dadkaygiyow waxaynu taagannahay maraynaa marxalad xasaasiyaynu maraynaa xasaasiyadda maxaa keenay maxaa marxaladda xasaasi u ekaysiiyey waxaa u ekaysiiyey kow maamulkeenna cusub baa waxaa bilaabmay marxaladdii kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya saamayn bayna ku yeelanaysaa miiska aynu fadhiisanaynu doonaynaa in layna ka riixdo aan layna ogolayno waa jirtaa waxay ku wacnad kala guurka in la gaaro inagoo 2 iyo 3 iyo 4 sanadood soo jiray maamul buuxa ahayd laakiin sida tan hadda waxay dhaantaa in kala guurku yimaado iyadoo wali ay ku meel gaadhnahay bay boqolkiiba boqol dhaantaa xasaasiyadda waxa u yeelaya xilli dadkeenii la soo dhex galay la doonayay in tashwiish laga dhex abuuro la doonayay in la kala qaybiyo la doonayay in mabaadi'dooda iyo qadiyadooda dib loo iibsado baynu soo gaarnay oo maraynaa cod dheer baynu ku sheegaynaa intaasoo dhan ma ogolin ma aqbalayno gabadha joogta laascaanood iyo ta joogta ceelaayo iyo ta joogta xadhanku waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan gabadha joogta Hargeysa iyo Burco bay xaq u leeyihiin haddii awal la is oran jiray nolol ma haysataan xagan kaalaya warkaa waa laga soo gudbay innagu waxaynu soo aragnaa inaan dekad shaqaynaysa haysan inaan ila dhaqaalo wanaagsan aan haysan laakiin xaqiiqada taala waxa weeye maanta deegaanada waqooyi galbeed ee goostadu ay ka taliso in fara badan oo kamid ah waxa ka nolol wanaagsan deegaanada waqooyi bari dadka jooga sidana nagu filan meel kale u hanqal taagi mayno cidda u hanqal taagaysa inuu iska qaban
aanu taab gaabnaana maamul ahaan daanu nahay laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa inaanaan qadiyaddaa iibin ama aanaan baayicin baan idin ballan qaadaynaa haddii ilaahay insha allahu tacaala inna la ku soo gaarayaanu idin ballan qaadaynaa in meeshii ay joogtay aan hore uga wadnaan idin ballan qaadaynaa markii talada naloo dhiibay ugu horreysay magaalada marfac baa ka dhacayay hudhaalkan maanta aynu fadhino suuqa waa la garanayaa qof kasta oo inaga mid wuxuu u dhaxeeyay geeri iyo nolol qof kasta oo inaga mid wuxuu ku xukunaa in la dilo oo la duqeeyo oo madfac madax lagaga dhufto hal doorkeennii odayaasheenii iyo abwaanadeennii waad ogeydeen in meydkooda laga soo ururiyey laamiyada iyo guryaha hoostooda maantana waxaynu joognaa dawladdii maxay qabatay iyo dawladdii maxaa ka khaldan intaa geedi laysagama guuro dadaal badan oo aan kala go' lahayn oo ay bulshadana bixisayba halkaa lagu soo gaadhay waxa inoo qabsoomayna waa wax inoo wada qabsoomay waxa weli inoo harsanna waxaynu ku qabsan karnaa keliya inaynu wada qabsanno haddii ilahay ka dhigo inaynu wada qabsanno wada saxanno u wada tashanno wada ilaashanno hareeraha ka wada joogna baynu ku wada qabsan karnaa oo keliya dhallinyarada hablihii hadlay baa qaarkood tilmaameen waxyaabahan laynagu soo dhex tuurayo ee ujeeddada guracan laga leeyahay yaynaan u dhegtaagin ee aynu ka shaqayno sidaynu xaqiiqda jirta dadka u gaadhsiin lahayn u baahin lahayn ugu sheegi lahayn isku wacyigelin lahayn ninka jimcaha soo waalanaya khamiistu soo xaydxaytaa baa la yidhi haddaad artaa nin jimcaha khamiista soo xaydxaydanaya jimcuhu waalanaya ay qabto qofkaa qaylada iyo xasaradda iyo maamulkan is-hortaaggiisa iyo dhaliishiisa dad baa waxay ku qarinayaan waalida jimcaha ay u socdaan waalida jimcaha ay u socdaan bay ku qarinayaan qofkii inuu waasho fursadda u lahaw waa ku aragnaa annagu fursaddaa ku siin mayno meesha kale lagaa siinaya laa hadalka waxaan kaga baxayaa martidan sharafta leh qiimaha badan dawladdu idinka weeyaan dawladnimadu waa shacabka horumarku waa shacabka amnigu waa shacabka inta aad tihiin baa dawladda la yidhaahdaa dawladnimadeennu innagoo arkayna yaynaan ka raadgadanin yaynaan ka raadgadanin aan ku far adagna haddii ilaa yidhahdo cadowgeennu weli waa samri la'yahay cadowgeennu weli waa soo bu'ayaa haddii shalay aynu ishaynay oo aynu ka adkaannay ka guulaysannay kullu shayin yarjicu ilaa asli gaaliya cawaankeed bay cawaan maciin bideen waxay isleeyihiin waxbay idiin goyn karayaan dadkan gaalo iyo cawaankeed iyo cid kasta oo isku dayda inay dhibaatayso waxba yeeli kari maayaan inta aynu isku duubannahay oo aan leenahay maya ma ogolin cidina waxay yeeli kari maysaay wax sahawli taagan tahay marka aynu si buuxda u wada odhan kari weyno maya ma ogolin markaynu wada odhan kari weyno baa hawli taagan tahay ugu dambayn amin baa la joogaa waxaan ku baraarujinayaa oo ku boorinayaa dhallinyarada iyo haweenkii hablaheennaba idinkoo arkaya gacmihiina yaan lagala bixin idinkoo arkaya wixiina yaan wax kale la idinka dhigin duulaan baa soconaya dhan walba ka soconaya
saddex sannadood baynu lahayn cida duulaan kuma hayn soocaynka baan cabdisaaqow cidda nagu duulaanka duulaan baanu ku nahay caawa laga bilaabo nidaamka goosatada ee Hargeysa jooga haddii intii hore ay ku antoobi waayeen waxaa naga go'an inaanu darsi labaad iyo cashar labaad aynu u dhigno oo aynu u sheegno inay hore ugu hungoobeen maantana ku hungoobayaan dhibaatada haddii Ilaahay ka dhigay wadaan adduunka iyo Soomaalina waxaanu u sheegaynaa nidaamka Hargeysa ka taliya wixii dhibaato ee deegaanada tan ka dhex dhaca mas'uuliyaddeeda iyaga qaadaya oo ay ku kooban tahay haddii Ilaahay ka dhigo dadka naga tagay ee u galayna waxaan leeyahay maxaabiista ku darsada haddii Ilaahay ka dhigo karada ku